madasha nabadda isdhexgalka bulshada gobolka Mudug oo ah dhalinyaro isku xilqaantay inay mideeyaan bulshada ku wada nool gobolka Mudug ee inta badan colaadda iyo dirirta dhexmartay ayaa muddooyinka ugu dambeeyay magaalada Gaalkacyo ka waday olole ay ku wacyigelinayaan qaybaha kala duwan ee bulshada ku sugan magaaladaasi. Dhalinyaradan oo isugu jira labada dhinac ee Gaalkacyo ayaa markii ugu horeysay bilaabay qorshe ay ku doonayaan sidii dadka magaalada ku wada nool ay si nabad ah iskugu dhexgali lahaayeen, waxayna qaateen go'aamo bulshada u horseedi kara nabad iyo kalsooni. madasha isdhexgalka si nabad iyo farxad la caaw ay magaalada Gaalkacyo ugu baashaalayaan oo marba dhinac ay u tagayaan iyagoo aan baqayn aan cabsanayn. Hotel 5 Star baan tagnay markii hore si nabad ah u tagnay, si nabad ah uga soo noqonay. Marka sawirkaasi wuxuu gudbinayaa in magaalada Gaalkacyo ee dhalinyaradeedu ay mid tahay, dadkeedu ay mid yihiin, isbaaraduna qalbiga ay tahay, in dadkii u haysan jiray Gaalkacyo inaan la isku gudbi karin. Gaalkacyo dad isnacab inay degan yihiin oo iscunaya. caawa waxaan filayaa tusaale ugu filan 4 saac oo habeenimo ku dhawaad in dhalinyaradii Gaalkacyo ay halkan fadhiyaan xilligii dambe caawa ay ku qaateen. Madaxda sare ee dhalinyarada madasha isdhexgalka ayaa kulamo isugu jira wacyigelin iyo dhiirigelin la qaatay madaxda deegaanka iyo bulshada. Maxamed Sheekh Saciid oo ah madaxa wacyigelinta dhalinyarada madasha ayaa ka warramay goobaha inta badan wacyigelinta ay ka sameeyaan iyo waxyaabihii ay kala kulmeen asagoo xusay. madasha shaqada ugu muhiimsan oo ay qabanaysaa waxay tahay wacyigelin, maadaama aan dowr ciidan anagu aan lahayn, nabadoon iyo xarbagna aan ahayn. waxa aan kaalintan ay tahay waxa way bulshada inaan wacyigelino, inaan bulshada shakiga iyo colaadda iyo codada la kala dhexgeliyay inaan ka saarno. haday tahay mid diineed, wacyigelin diineed iyo wadaneed ahaan inaan bulshada wadaneed aan ku beerno. markii aan wacyigelinta bilaabaynay kula dheer ayaan ka qaadanay meesha aan ka bilaabi lahayn, laakiin markii u dambeysay waxaan go'aansanay inaan ka bilowno bahda waxbarashada oo iskuulaadka aan tagno, maadaama dad qalbigoodu fiyow yahay oo waxbarashadii iyo qiimaheedana dareemaya ay yihiin, dad aqoon lana ay ka buuxaan. halkaas ayaan ka bilownay. waxaan mid u tagnay iskuulaadka magaalada ku yaala. waxaan halkaas kala kulnay runtii dareen anaga dhiirigeliyay runtii ardaydii markaan u tagnay oo barnaamijkeena qorshahan wadna aan u sheegnay. waxaan ka helnay iskuulaadkii dad anaga naga wadinayad badan, anagana dhiirigeliya shaqada aan hayno inay tahay maaragtay shaqo wanaagsan oo lillahi ilaahi dartiis iyo daacadnimo aan ku galayno, ajarna ilaahi xaqiisa aan uga helayno maadaama islaax beenaas aan ka shaqaynayno. halkaasaan ka bilownay wacyigelinta. waxaan halkaas oo dooranay waxa weeye dadka inaan isjeclaysiino. nabiga sallallahu alayhi wasallam markuu tagay magaalada Makka, markuu ka haajiray oo u haajiray magaalada Madiina, asagii muhaajiriinta la socday markay tageen magaalada Madiina, nabigu shaqada u horeysay oo qabtay waxay ahayd al-mu'akhat bayna al-ansar wal muhaajiriin. muhaajiriinta asaga la socdo deegaankoodii wadankoodii ka haajiray iyo ansaartii magaalada Madiina degneed inuu nabigu walaaleeyay laba isku jeclaysiiyay. waxaan bilownaa markaa inaan iskuulaadkii mataanayno, gudiyadoodii, maamuladii iskuulada, macallimiintii aan isku dhaf u samayno. dhalinyarada madasha isdhexgalka bulshada gobolka Mudug ayaa door muuqda ka qaatay nabadeynta bulshada gobolka Mudug, waxaana jira isbeddello xilligani laga dareemayo nabadda iyo isdhexgalka bulshada gobolka Mudug. Cali Nuur Cayn, Goobjoog, Gaalkacyo.